bismillaah waxaan trade-kan u qaatay dhanka lower option anigoo ka qaatay meel aad iyo aad muhiim u ah. Halkan waa 50% line ayaa la halkan waxaan soo qaatay Fibonacci toolkayga. Lemiskan faraha badan aa arkaysaan waa Fibonacci tool waana inaad ku ogaatid meesha suuqa laga soo celin doono. Suuqan saa ujeedno wuxuu ahaa xaalad consolidation oo iskaga jiray ama xaalad qurux badan ma uusan ku jirin, laakiin lowga highgan ilaa iyo lowgan ayaa waxaan sameeyey Fibonacci toolkayga soo qaatay oo bacdeen waxaa helay 50% line waxaan soo qaatay dhanka lower option. Suuqan sidaan wada ogsoonnahay anagu waxaan nahay retailers aan nahay ama retail traders wax loo yaqaano ayaan nahay. Marka waxaa muhiim ah in aad ogaatid suuqan dadka ku jiraan qaabkay u trade gareynayaan. Dad baa suuqan bangiyaa wado, shirkadooyin baa wado, sidoo kalentood dad shakhsiyaad ah aniga iyo dad kaloo iga lacag badan oo lacag waaweyn soo gashanaya ayaa suuqan ku jiraan. Soo marka qaabkay u trade gareynayaan ama wadiiqada ay raacayaan waa inaad raacdaa. Hadda suuqan waxaan usoo qaatay dhanka lower option, qolo badan iyo bangiyadii ayaa waxaa igula jiraan lower option ayaa igula jiraan. Sababtuna wax kale maahane waxay rabaan inay manipulation ay sameeyaan. Suuqan sell yaris ay soo gelinayaan oo ilaa iyo 5 daqiiqo 4 daqiiqo ah. Bacdina suuqu wuxuu aadi doonaa dhanka uptrend ayuu aadi doonaa maxaa yeelay liquidity ka kore ayuu rabaa inuu suuqu soo taabto. Soo marka dadkan waxay rabaan inay qasaariyaan, manipulation ay sameynayaan. Manipulation ka markay sameeyaan kadib waxaa dhacayso in suuqu jihadiisu iska sii wato. Dadkii ugu jiray dadka waxay rabaan dad badan inay sell u galaan si ay u qasaariyaan. Soo marka 4 daqiiqo kadib suuqu wuxuu aadi doonaa dhanka iyo higher option ayuu aadi doonaa insha Allah. Bal aynu isla eegno waxa ka dhasha insha Allah. Hadda waxaa inoo haray 2 candle ayaa noo hartay. Labadan candle sida ay noqdaan ama wajiyada ay ku dhamaadaan aynu aragno. Haddaba haddii aad tahay qof suuqan ku cusub, ha maleynin in suuqan qofku markuu soo galo horay uu ka taajiro. Ogow waxaa la kulmaysaa caqabad fara badan, waxaa la kulmaysaa dhibaatooyin fara badan, waxaa la kulmaysaa qasaarooyin fara badan, laakiin kulama qasaarooyin fara badan aad la kulantid waa kulama cilmi badan aa faa'iidid. Marka iska waalin waxaan ogsoonahay in annaga haddii aan nahay Soomaali aynu ku wacanahay degdega. Soo ha degdegin, tartiibka ah isku day in suuqan aad fahantid oo aad waqti ku bixisid. Wax bilaa waqti ma imaadaan dunidan, dadaal bilaa waqtigana rajo ma lahan. Soo waqti geli. Talent haddii aad leedahay talentigaas waa inaad waqti gelisaa. Talent without hard work is nothing. Haddan kuu sheegayaaba. Laakiin waxaan talent maahan waxaa waaye inaad baratid farsamooyinka suuqa. Adiga maxaa tahay, naftaadu maxay tahay, ma waxaad tahay retailers, ma waxaad tahay wholesaler. Suuq waa inaad fahantaa lacag badan ma suuqa ku gulaysaa, lacag yar ma suuqa ku gulaysaa. Hadda aniga lacag yar aan ku gulayaa $3. $3 laakiin waxaan ku trade gareynayaa si caqliyan ah. Waxaa imaan doonta maalin $500 $600 aan trade ku galayo. Laakiin wax walba waxaa waaye everything is a process. Respect garee processkaaga tartiibkaana. Saa ujeedno waan guulaysanay. Suuqane daqiiqada kadib suuqan iska ag fadhi waxaa ogaan doontaa suuqu in manipulation ay suuqan ay ka wadaan dadka wholesalerska ama dadka waaweyn ama bangiyada inay manipulation ka wadaan. Suuqan wuxuu imaan doonaa order blogan 1 minute ka imaan doonaa bacdina suuqu up ayuu u sii huleeli doonaa. Marka insha Allah waxaan idin rajeynayaa horumar iyo baraare. Suuqan wuxuu u baahan yahay deganaan. Haddaba haddii ay tahay markii kuugu horeysa soo booqato muuqaalkan, waxaan ka codsanaa muuqaalka inaad si share gareysid. TikTok-gana waxaa idin dhigi doonaa qaybta description-ka soo follow gareeya.